بعسينو قريقان أرم جيري أيي تلا وقيستاني إساقا كورفايو دبتي ساقونا ندين قبلي هيو عيارها نكي قرن هلو دايو قريقان أرم جيري أيي تلا وقيستاني إساقا كورفايو دبتي ساقونا ندين قبلي هيو عيارها نكي قرن هلو دايو nahay suldaanka cidda oo bahda fay anigoo ah magacayga suldaan najiib ninkii loo idmay oo cidda ay saaratay awoodda waxaan leeyahay dr xasan maxamed ayaa cidda fay ku tashatay inay soo tartama calankana u bubiya ilaahay abshiraa ka dhigay oshi waa kuu dhiibni insha allah guul hay guul تكبير 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 walaalyaal reer wajeer iyo beesha fay waad mahadsantihiin sidaad guryihiinna shaqadiinna aad meeshaan uga imaadeen inaad xafladdan ka soo qayb gashaan waad mahadsantihiin waxaan mahad weyn u celinaa beeshan fay oo arrintan 8 bilood ee soo dhex soqod oo hadda si fiican oo khayr leh ee noogu dhammaatay mahad waxaan u celinaa ciddii curudka ahayd oo maxamed fay oo ninkii walaalkeen ahay oo xasan khaalid wehliye aad ka socday oo reebkay faarax aaba faarax oo wiilka iyo sapotagiiska ee tanaasuli in ay noo daayaan aniga iyo walaalkay ugaas sheekh inaan tartanno oo keetigan aan ciddan beeshan ku soo celin ugaas sheekh walaalkay asagana mahadaan u celinaynaa tartankiisa wuxuu ahaa mid walaaltinimo ah waxyaalo yaryar oo hadda la sheegaa insha allah way iska dhammaanaan ciddana wayna dhisaysaa guulna waa gaaraynaa insha allah biidni illaah waxaan mahad weyn u celinaa reer wajeer oo dhammaala oo arrintan naga sugaayo oo siyaasadooda iyo teen anaga ay isku xiran tahay maxaa yeelay baahidooda waa baahideenna cilmigooda waa cilmigeenna caafimaadkooda waa caafimaadkeenna marka walaalayaal waad noo sabarteen ilaahayna sabar ha in siiyo arrinta hadda way soo gabagaboodii marka campaign aan bilaabayna insha allah arrintan ma ahan qof aan iska soo baraarugi oo soo dhexgali maaha baahida dadweynaha wajeer ka dhex muuqato waa mid weyn baahidan waa laba qaybood mid hadda ah iyo mid saamaynayso dhaxalkeenna haddii aan reer wajeerna baahida hadda kolba waqti yar haddii aniga hadda siisaan jagada waan ka gudbaynaa insha allah ilaahayna garab galaa walaakiin baahida muhiimka ah oo qof kasta oo reer wajeer ah inaas ka fikira waxaa weeyaan annaga xoolo dhaqata haddii aan nahay
dhaxalkeenna dhaxalka ilmaheenna muxuu noqon doonaa 30-40 sano ka bacdi maxaa yeelay Kenya waa naga guurtay way naga tagtay anagooba markii hore nala curyaaminaa oo dawladdana curyaaminayso aan dawladdii ay noo qoondaysay dawladda hoose Kenya aana si fiican u qabsan waayeen marka dhibkeenu wuu badan yahay ilaahay ha naga bixiyo campaign-keena aan bilaabaynaa midnimadeena aan dhisno aan doonana kitigan si wacan oo walaaltinimo ah oo dad kasta aan la kaashano